فاصوليad cuntiyo inaad biisa cunto inaad garow cunto iyo inaad maxay inaad digir cuntaa digirta marka la cuno iyo biisada marka la cuno jidhku intuu u baahan yahay labadaba uu ka helaa calooshu ma kala taqaano waxa lagu riday inay biisa tahay inay digirtay calooshu waxay taqaanaa in vitamins ay hesho proteins ay hesho fats wixii ay u baahnayd inay hesho waxaas uma ka dhuuqda waxa la isdheeriyo waa maxay waa dhadhanka afka carabka kala sheegay inay biisa tahay inay digirtay intan carabka saxaabadii way ka adkaysteen intan carabka way ka adkaysteen laakiin caloosha waxay u ogolaadeen wixii u baahnayd inay hesho waxay u baahnayd inay hesho protein iyo vitamins waxay u baahnayd waxay aqbaleen inay noloshan bini aadamka ay mas'uuliyadeeda iyagu qaadaan oo ah qiyaadada albashariya bini aadamka inay hogaamiyaan oo xaq ku hogaamiyaan qof qaawani Soomaalidu waxay ku maamaadaan laba qaawani isma qaada bay yiraahdaan qof qaawani bashar kalena ma hogaamin kara adaaba qaawani waxaad u baahan tahay si aad basharka u hogaamin karto inaad noqon karto modelkii lagu dayanayay nabigu kaleey salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu uga waramay qiso dadkii hore dhex martay oo ah laba nin ayaa dhulka la iibsaday xadiiska Bukhari ku yaala markay dhulka la iibsadeen ayaa kii dhulka iibsaday wuxuu ka helay kuus ama kuusad ashuun ama jalxad ayuu helay dahab ku jiro dhulka ku jirtay waxaan shariicada islaamiga rakaaz loo yaqaano laakiin qoladana waa shariicadii inaga horeysay baashii buu soo qaaday dhulkii uu ninka ka iibsaday buu ka qoday dabeetana intuu soo qaaday buu u keenay ninkii wuxuu yiri warnin yahow jalxadan dahabka baan ka helay dhulkii ee anigu malihiya adaa leh qaada buu ku yiri ninkii kale wuxuu ku yiri isaguna waana malihi oo hadaa yaalade wuxuu yiri anigu dhulkan ka iibiyay wixii ku jiray kama warhaynin adaa isule adigu qaado inaga dahab dhalaalaya hadaad aragto dhareerkaaba ka soo deeylahaday adiga ale iyo warkaasi hadda beeyo sidii aad u yeelan lahayd baad shan sheekh soo weydiin lahayd sheekh dhul hadaa wax ka helo maaniga ale misanka waraale waa fatwa raadinaysa inaad inta ku qaadato waayo markaad bidhaantiisa aragtay ayaa hungurigu bilaabmaya ama ninka kani waxaaba la qiimeeyay dahabku lamacaan lama leh dhalaal lama leh sida ogeed buu wuxuu ku leeyahay intuu iska soo qaaday kii meesha sii joogay waaradaan dhulka ka iibsaday adaa leh qaado kiina wuxuu yiri waar anigu malihi adiga leh qaado waxay tagtay markaa maxkamadii dunida ugu cajaa'ib badnayd maxkamada maxaa loo tagaa waxa loo tagaa laba qof oo wax isku haysto maxay leh mid waliba leh ana leh markaas xaakim loo baahdaa laakiin haday noqoto adiga alam ya xaakim loo baahdaa loo baahdo laakiin nimanka kan adaal iyo adaal ba lagu kala bixi waay dabeetana xaakim baa loo baahdo nin baa la isula tago waxa la yiri noo garnaq maxaan ku garnaqaa buu yiri nin baa wuxuu yiri sheekadii baa la sheegay adaal iyo adaal baan isku haysanaa waa maxkamad qariiba markaa adaal iyo adaal baa la isku hayaa ninkanna noo garnaq baa la leeyahay wuxuu ku yiri markaa waaye gartiini baa naqay su'aal baan adiga ku weydiiyay alakuma waladun arur maleedin mid baa yiri inan baan leeyahay kii kalena wuxuu yiri inan baan leeyahay gartaa waxaan ku naqay buu yiri hadaba inanka ayay inta isu guurisaan xoolahana ku sadaqadeeyo iyaga ku bixiya inanka ayay inta isu guur maxaan xadiiska uu soo qaadanaya waxaan soo qaadanaya waxa weeyaan islaamku wuxuu ina farayaa xooluhu inaanay qalbiga inaga degin inay gacanta inaga degaan islaamku inama farayo faramadnaada oo qaawanaada dhamaantiin leena farayo laakiin waxa leena farayaa xooluhu gacantiina ha ku jiraan ilaahina ku ateeco wixii leedin ku bixiya marka soo xoogsanaysan xalaal ku keena marka bixinaysan xalaal ku bixiya islaamku wuxuu ina farayaa adduun iyo aakhira kala soocani ma jirto ee waa shay qura ee adduunkana ku nooshiin inta joogtaan dad muntajiina hada islaamku wuxuu ina farayaa nolosho dhami waa cibaado qul inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin idan ikhwati fi al-aqeedah darisku wuxuu ku kooban yahay markaa aragtida suufiyada ma qabnay adduunka ka tago masaajidka galaqbes aragtida xoogsiga ah iska xoogsi taga rag waa ragii xoogsadana ma qabno
xataa ma qabna aragtida odhanaysa saacadna soo cibaadayso saacadna xoogso ee waxaanu qabnaa aragti odhanaysa saacadda xoogsigana cibaado ka dhig saacadda masaajidkana cibaado ka dhig noloshaadoo dhammi cibaado ha noqoto noloshaadoo dhan ilaahay ku ateec subxaana wa tacaala adduunkaagu ha noqdo beertaad aakhiro u fadhanaysay meeshaad rabtay inaad aakhiro u beerato adduunkaagu ha ahaado hadduu yahay mid cilmiya hadduu yahay mid maadiya hadduu yahay mid lacageed sidaa awgeed baa waxaan ku tilmaamaynaa saxaabadan waaweyn aan leeyahay nin waliba milyanuu ka dhintay maxaa milyanadooda u maqli weydeen waxa u maqli weydeen taariikhdooda milyankan waxa lagu faaniyo waxa buuran ka ahayn waxa lagu faanaa waxay ahayd in ilaahay la adeeco waxa laga yaabaa intiina haddaan idi weydiiyo zubayr milyaneer maaha qof garanaya inaanu jirin laakiin marka la yidhaha casharatulmubashiriin ma ku jiray ha sacd ibn abi waqaas milyaneer maaha qof garanaya ma jiro laakiin haddaan idhaha casharatulmubashiriin ma ku jiray waa la garanaya cabdiraxmaan ibn af cuthmaan ragga kan inay casharatulmubashiriin ku jireen baa macno samaynaysa inay lacag haysteen macno samayn mayso koodii faqiirkaha iyo koodii lacagta haystay waxay ku kala mudnaayeen baa ina akramakum cinda allaahi atqaakum sida daraaddeed adduun waa la hayee adduunkaan qiimaha ahayn ee aakhiradaa qiimaha ahayd iyo wuxuu aakhire ka gooyo marka waxaan idin leeyahay adduun ha idin soo galo laakiin yuu noqonin adduunku mawaasiinta oo iyo intaynu sheegnaa ina noqon wallahi ninka heber waa nin baacbishtaro weyn dabeetana waa laysu soo taagaya dee mar dumaal qabeeyey kanina waa mid aan waxba haysanin oo laysu soo taagi maayo miqyaaskaasi wuu qaldan yihi miqyaasku waxa weeyaan kii ilaahay adeecun baynu isu soo taagaynaa hadduu xoola haysto oo ilaahay adeecana fa ahlan wasahlan waa nin mu'mino fiican hadduu faqiir iyo ilaahay adeeco waxay leenahay ahlan wasahlan waa mu'min fiican mawaasiintu yay qaldamin هذه واحدة موازينته يا قلدمين أدونكنا هالنقطة طريق آخر اللي قاعده والله أعلم بالله التوفيق والسلام عليكم